hore waan idin salaamay waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka labaad waxaan u hambaleynayaa dhammaan saraakiil xigeenta alifleyda dableyda iyo qoysaska ciidamada asluubta Soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya sanad guurada 49aad ee ka soo wareegtay maalintii la aasaasay ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay hambalyo anigoo ciidamada uga mahad celinaya dadaalkay muujiyeen naftooda ay soo qadimeen dhiigooda ay ogolaadeen inay furaan haddana waxaan rabaa in halkan aan uga diro hambalyada ugu weyn hooyooyinka iyo aabbayaasha iyo carruurta qoysaskooda oo iyaguna aqbalay inay nala qaybsadaan inay qarannimada ku difaacaan dhiigooda idinkana waa mahadsantihiin intaas ka sokow waxaan rabaa inaan halkan anigoo magaca dowladda Soomaaliyeed ku hadlayo u mahad celiyo aabihii budhigaha u ahaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo halkan nala fadhiya sareegaas Ismaaciil Axmed Ismaaciil waxaan leeyahay mahadsanid waxaan kaaga mahad celinayaa dadaalka u soo gashay qarankaada waxaan kaaga mahad celinayaa inaad naftaada u soo hortay dalkaada welina aad nala joogto la joogidda aad la joogto ciidamadan ka dhalintay si aad ugu sheegto taariikhdii aad soo marteen iyo inay macquul tahay dalka in dib loo dhiso iyada lafteeda ayaa qayb ka ah dib u dhiska dalka ciidamada asluubta iyo dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay qarannimada macnaheedu waxa ay tahay qadarinta kuwa qarannimada ama qaranka soo bilaabay in la soo dhiso halkan waxaan ugu mahad celinayaa fanaaniintii soo istaagay waxaan ku raacsanahay mirihii yaraa oo ahaa miyi iyo magaalaba Soomaaliya mid waaye maslaxay rabtaa iyo midnaan qaran miyi iyo magaalaba Soomaaliya mid waaye waa dhab waa sababta qof waliba uu dhiigiisu istaagayo ay xaadiisu dhaqaaqayso marka laga hadlo qarannimada waa sababta qof waliba markaas iyada uu ilaabayo qabiilka iyo qabyaaladda waa sababta markaas qof waliba uu arkayo Soomaaliyada uu rabo inuu arko laakiin waxaan rabnaa in dhiigeennu kululaado in dhaqankeennu isbedelo in markii halkan aad soo istaagayseen sida aad u taagneedeen aad habeen iyo maalinba u taagnaataan inaad aqbashaan in gelinka hore iyo gelinkan dambaba ay tahay in qalbigaada iyo maskaxdaadu ay isku meel u jeedo ciidamada asluubta Soomaaliyeed waxay lahaayeen magac iyo maamuus dad badani waxay aaminsan yihiin inay maxaabiis ilaaliyaan waa inaan aqbalnaa in shaqadoodu ay tahay toosin waa inaan aqbalnaa inay shaqadoodu tahay barbaarin waa inaan aqbalnaa inay shaqadoodu tahay anshaxin iyo wacyigelin waa inaan aqbalnaa inay shaqadoodu tahay inay dib u caawiyaan dad Soomaaliyeed oo si ay nolosha uga khaldantay kuna soo celiyaan bulshada si ay uga qayb qaataan dib u dhiska iyo dib u yegleelidda qarannimada Soomaaliyeed waxaan halkan idinkaga hambaleynayaa maanta inaad soo dhammaystirteen xabsigii la rabay in lagu xanaaneeyo dad Soomaaliyeed laakiin ay ka muuqato qaabka uu dalkeena dib ugu soo dhismayo waxaan uga hambaleynayaa ciidamada asluubta iyo wasaaradda cadaaladda
iyo bahda cadaaladda oo dhan oo halkan joogta oo naftooda dalka u horay innagoo taxsiina u dirayna kuwii ugu dambeeyey oo ku geeriyooday oo ugu dambeeyey xeeraaliye ku-xigeenkii in xabsigii iyo maxkamaddii ay isku dhex taallo macnaheedu waxay tahay cadaaladii oo tallaabo hore u qaaday. waa idin hambalyaynayaa Soomaalina waxaan leeyahay Ilaahay ha u barakeeyo. waxaan rabaa idinkoo xafladiina wadan doona inaan laba arrin ku soo koobo. kow, waxaan idinku garab taaganahay shaqada aad haysaan, waxaana idinkala shaqayn doonaa inaad heshaan xuquuq walba oo aad leedihiin. labo, iyadoo ay muhiim tahay in ciidanka asluubta dib loo dhiso, horumar iyo iftiinna uu muuqdo, halkanna ay fadhiyaan dhammaan taliyayaashii ciidamada dalka oo dhan, waxaan rabnaa in la aqbalo in ciidanku uu yahay lafdhabarka dalka. waxaa la rabaa in meeshii lagu faanayay ay ciidanka tahay, meesha qabyaaladda ka madaxda bannaan ay ciidanka tahay, meesha musuqmaasuqa ka madax bannaan ay ciidanka tahay, meesha lagu soo ordo inay ciidanka tahay, meesha soomaalinimada iyo calanka laga difaaco oo ciidanka ah inay tahay meesha ay dadka Soomaaliyeed u garanayaan. maadaama marka taliyayaashii ciidanka oo dhan ay halkan fadhiyaan, waxaan rabaa inaad dhinaciina fiirisaan. halkan waxaan ugu dabaaldegaynaa Ilaahay ha barakeeye generaalkii ciidankan soo asaasay Ismaaciil Axmed Ismaaciil. qof waliboo Soomaaliyeed waxa uu aqbalsan yahay inuu dalkiisa wax u taray. inteena maanta xukunka joogta ama Ilaahay cilmi siiyey oo culimo ah ama wasiir ah ama ganacsato ah ama hameen Soomaaliyeed oo hormuud ah ama dhalinyaro soo koraysa ah, waa inaan isweydiinaa su'aal. su-aashaasi waxay tahay markii Ilaahayna soo gaarsiiyo meesha uu generaalkaasi soo gaaray, taariikh noocee ah ayaan rabnaa inaan ka tagno. qof waliba marka waa inuu isqiyaasaa oo anigu horeeyo oo madaxweyneenu ugu horeeyo. annagu keliya waxa aan rabnaa qarankii Soomaaliyeed oo lagu soo ordi jiray oo derisku ay ixtiraami jireen oo adduunyaday tusaale u soo qaadan jirtay oo sharafta iyo karaamada iyo iftiinka ummadda Soomaaliyeed bannaanka soo dhigi jiray, ceebtana qarin jiray, kii asturi jiray qabyaaladda, kii loo aqbalay in ciidankeennu uu ahaa libaaxyada geeska Afrika. dadkii Soomaaliyeed ee qarankaas dhisay qaarna way fadhiyaan, qaarna carruurtooda ayaa halkaas fadhida. keliya waa in la aqbalaa in dowladnimo la dhiso, in sharaftii la soo celiyo, in asluubta lagu haminayo dib loo soo celiyo. waa in la aqbalaa inay rabto dadaal. dadaalkaasi waxa uu ka bilowdaa qof walibay marka hore naftaada xisaabi, si kulligeen Ilaahay uu nooga dhigo inaan helno sharafta uu generaalkaas leeyahay. Ismaaciil, waa mahadsantahay. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.